markii ugu dambeysay taariikhda 5 sano ayaa ka soo wareegatay markii ay kulmeen madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin 5 sano kadib ay kulmeen waxayna ku kulmeen magaalada loo dalxiis tagay Sochi ku taala koonfurta dalka Ruushka waxayna ka wada hadleen xalka labada dal waayo madaxda Ruushka waa inay maraan wada hadal toos ah u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa looga bixi karaa kaliya xal siyaasadeed iyo xal ku saleysan wada xaajood iyo sharciga caalamiga ayuu sheegay Vladimir Putin nolosha nabadda iyo waliba labada dal Falastiin iyo Israa'iil waxa shardi u ah ammaanka iyo xasiloonida dhabta ee bariga dhexe madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay dhawaan booqashada ugu baxay dalka Mareykanka oo kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inay ka wada hadleen qarannimada Falastiin iyo in xal lagu gaaro wada hadal dhaba oo la suura galiyo sidoo kale waxa uu sheegay in Trump ay ka wada hadleen arrimaha argagixisada caalamiga iyo xeerarka caalamiga u yeelay argagixisada waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen xorriyadda hadalka iyo waliba dimuqraadiyadda ammaanka iyo nabadda in laga wada shaqeeyo